daawadayaal halkaa nagala socotaana waa barta aan ku leenahay ee social mediaha youtube-keena ee Doobiya Media iyo sidoo kalena barta kale ee mdobi facebooka. waxaan idiin soo gudbinaa wararka dalkeena hooyo ka dhaca kuwoodii ugu dambeeyey haddii ahaa lahaayeen kuwa la xiriiro arrimaha siyaasadda dhacdooyinkii u dambeeyey ee wararka xiisaha leh ee dalkeena hooyo Doobiya Media iyo mdobi ayaan iga soo baahinaa haddii ahaa lahaayeen dhacdooyinka caalamka iyo fanka iyo dhaqaalaha dunida iyo soomaalidaba intaba waa idiin soo baahinaa. waxaana qayb ka ah waxyaabaha idiin soo baahino isboortiska ayaa meesha ka maqneen iyo sidoo kalena kuwa dalka iyo dibadda intaba ka daawo Doobiya. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. akhyaartu idaawanaysa ay meel walba joogtaan iyo goor walba iyo xilli walba ay idiin tahay wacanoo wanaagsan ayaan ku soo dhahaya anigoo ah Mustafa Maxamed Cali kala soo hadlo barahan ku leenahay social media sida youtube-keena ee Doobiya Media iyo barta kale facebookeena ee mdobiyo alabana ku soo baahiyo qodobada siyaasadda dalkaada hooyo kuwoodii ugu doorkaroon qodobada aan idiin wado gudagelin aan ku yara xasuusiya deeta markii kugu horreysay janaalkani ee Doobiya Media dul imaad youtube-keena subscribe noo saare falna calaamad gudubta subscribe taaba gambeelka fursi ama aan joogto oo like tan dhiirigelin ay noo tahay asxaabta la sii wadaagu sii sheegaray aragtidaada comment noogu soo gudbi. qodobada aan idin hayno waxaan ka mid ah ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo golihiisa wasiirada ee xukuumadda xilgaarsiinta ayaa maanta Muqdisho ku shiray arrinta beledweyne ciidamada la geeyey iyo sidoo kale bakaalaha ka hadlay. warbixin la xiriirtana waa idiin soo gudbin doonaa. sidoo kalena bakaaraha ayaa maalintii labaad xiran islamarkaasina ay tahay mid gebi ahaanba dhaqaaqii ganacsiga ka jiray hakad uu ku yimid. warbixin dheer oo la xiriirto waxyaabahaasi sababta ka dambeysa iyo jarnaal Odowaa oo ka hadlay arrin ka duwan sidii xukuumadda uga hadashay beledweyne ciidamadii la geeyey sidii ay isku qaban karaan. warbixin la xiriirto ayaa idiin soo gudbin doonaa iyo doorashooyinkii ka dhacay sidoo kale galmudug iyo sidoo kalena deegaano kale oo ka mid ah Puntland islamarkaasina xildhibaanada ku soo baxay. warbixin la xiriirto ayaa idiin soo baahin doonaa. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jirtay xiisad siyaasadeed islamarkaasina ay tahay mid xaaladeedu kacsan tahay. waxaana shalay la geeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk Soomaaliya oo kala ah kuwa gaarka uu tababaranaya Gorgor iyo sidoo kale Haramcad. waxaana arrintaasi laga bixiyey sawirro kala duwan. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Jenaraal Mukhtaar oo ka soo jeeda beledweyne ayaana ka hadlay maalintii shalay markii la geeyey ciidamadaasi. sidoo kale taliyihii hore ee sirdoonka qarankaasna ka soo jeeda beledweyne Shambiloosho ayaa ka hadlay. waxaana sidoo kale Goodax Barre oo wasiir iyo xildhibaan ka soo noqday dowladihii hore ayaa isna beledweyne ka soo jeedo ayaa ka hadlay. dhammaantooda sheegeen in beledweyne siyaasadda iyo weliba xaaladda ka jirto ee tahay mid dhibaato ka dhalan karto islamarkaasina ciidamada la geeyey ee tahay mid sii horseedi karto colaad iyo weliba dhibaato. maanta ayaa golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoomiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayadoona ka hadleen arrimo fara badan ee ugu horeyso ciidamadii la geeyey beledweyne. waxayna golaha wasiirada kulankooda kadib wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Cadaala uu sheegay in golaha wasiirada ay isku raaceen in ciidamada la geeyey beledweyne islamarkaasina ay tahay mid aan ka warqabin wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga sidaasi dadeedna la farayo ciidamadaasi inay dib ugu soo laabtaan xeryahooda islamarkaasina ay u saareen guddi sidii loo xalin lahaa arrinta ka taagan xiisadda beledweyne. waxaana sidoo kale wasiir Cadaala uu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu qadka taleefanka uu kula xiriiray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kalena waxgaradka iyo siyaasiyiin ka soo jeedo beledweyne si loo dhammayn lahaa arrintaasi. waa kan Cadaala oo ka hadlaya golihii wasiirada maanta. raaceen dhowr qodob oo loogu talagalay in lagu xalliyo xiisadda ka taagan magaalada beledweyne. qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyey magaalada beledweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas'uulka ka ahaa ee u xil saarnaa in ay korjoogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada. waxaa la faray taliyaasha ciidamada in ay si degdeg ah ciidamadaas uga soo saaraan magaalada beledweyne uguna celiyaan xeryahooda.
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jenaraal Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay idaacadda VOA afka Soomaaliga laanteeda ayaa waxaa wax laga weydiiyey arinta beledweyne ciidamada la geeyey, wuxuuna sheegay in ciidamadaasi ujeedka ay u tageen ay tahay sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka islamarkaasina al-shabaab ay ugu dagaalami lahaayeen waxyaabaha la hadalhayo ee siyaasadeed ay tahay mid been abuur ah. Wuxuuna sidoo kale hoosta ka xariiqay in guud ahaanba gobolada dalka ee beledweyne ay la mid tahay. waxaa wax laga weydiiyey jenaraal Odowaa in golaha wasiirada islamarkaasina wasiiradii hoos tagaysa xukuumadda ciidamada aysan wax ka ogeyn, uuna sheegay in ay tahay mid aysan mar walba in meeshay tagayeen ciidamada gebi ahaanba ay ka warqabi karaan golaha wasiirada. ciidanka al-shabaab la dagaalamaya oo aan wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha ogeyn maxay yihiin? horta Falastiin waa mahadsantahay aad u mahadsantahay walaal. anaga horta wasiir amni iyo wasiir arrimaha gudaha nidaamka dawliga hay'ado iyo systems hoosta uu leeyahay. wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha guduhu dabcan waa wasiiradeeni shaqay leeyihiin, howlay leeyihiin, anaguna shaqan leenahay. howlgallada muxuu ahay sheegay beledweyne ciidanka tagayna kama duwana ciidanka tagay Buusamareeb, kama duwana ciidanka jooga Baydhabo, kama duwana ciidanka jooga Jowhar. hadda sida aad la socotaan gobolka Shabeellaha Dhexe shalay waxaa ka socday howlgalladii ugu xooganaaya ka socday dhammaan deegaanada ku xeeran oo dhan. sababta howlgalladaas ay u dhacayeen waxa waaye in ay nimanka cadowga laga saaro dhammaan xayndaabyada ku dhow goobaha doorashooyinku ka dhacayaan. marka ciidanka beledweyne sabab sawir kale looga bixiyana ma jirto, mana ahan waxa sawirka laga bixinayo. arrintan aad sheegtay wasiirada wasiirka amnigu dabcan waxa uu hay'ado asigoo haddana wasiirka amniga hay'ado uu xukunyaa jira oo hoos taga oo u raboor gareeyaa jira. wasiirka arrimaha gudaha sidaas oo kale asagana shaqo iyo hawl uu leeyahay jirta, laakiin macnaheedu ma ahan inay involved ku yihiin ama ay hawshoodii tahay arrinta militariga kaliya. waxa ka qusaynaa waxay yihiin ciidankaas howlaha gudaha laga qabanayo iyo hawsha ayaga u taala, laakiin militarigu arrinta la dagaalanka argagixisada wasiir amnina uma hoos tagaan, wasiir arrimaha gudaha uma hoos tagaan. iyo hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga. marka wasiirka gaashaandhigga waxaa leedahay iyo madaxda kale qaranka. marka ra'iisul wasaaraha hadday noqon lahayd ra'iisul wasaaraha, hadday noqon lahayd madaxda kale qaranka. marka waxaa leedahay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhigguba waa ay ogaayeen ciidamada beledweyne la geeyey. waxaan rabaa inaan kuu sheego Falastiin, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sideedaba waxa ay leeyihiin waa mas-uuliyadda ay leeyihiin ee ah sugidda amniga qaranka iyo bulshada Soomaaliyeed. wax ma ahan yani day to day la leeyahay meel hebelan aadnay iyo kanaan ka dhaqaaqnay iyo kanaan ka dhaqaaqna ma ahan. hadalka jenaraal Odowaa ayaa waxaa u muuqday mid uu ka biyo diidayay in uu si toos ah amarada iyo weliba riboodgaleynta wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ra-iisul wasaaraheeda ay ogeysiinayaan beledweyne geysmada ciidamada ee la geenayo. waxaa maalintii labaad si toos ah gebi ahaanba aan shaqo kaga soconin ganacsiga waaweyn ee ku yaala suuqa Bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn geeska Afrika marka loo fiiriyo suuqyada ku yaalo. waxaana taasi ay sabab u tahay kadib markii ay amar soo saareen canshuur kurugis ah kooxda argagixisada ee maleeshiyada Daacish, islamarkaasina ganacsatadii ay sheegeen in aysan awoodin. waxayna hoosta ka xariiqeen inay bixiyaan canshuur dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale canshuur ay siiyaan argagixisada kale ee shabaabka iyo sidoo kalena Daacish oo iminka imaaday. waxaana maanta si toos ah ay u soo baxaysaa in ay noqoto mid haawanayso. waxaa la arkayaa goobo fara badan oo ganacsi ah oo gebi ahaanba suuqaasi xiran. haddaba arrintaasi dowladda Soomaaliya ayaa maanta golaheeda wasiirada waxa ay ka hadleen xirnaanshaha suuqa Bakaaraha. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaana waxaa warbaahinta kaga warbixiyay markii golaha wasiirada maanta kulankooda uu soo gabagaboobay Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Al-Cadaala oo ka hadlayo xaaladda maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd suuqa Bakaaraha oo argagixisadu ay culays weyn ku hayso ganacsatada Soomaaliyeed oo ay telefoonno ku soo handadayaan isla markaana ay qaarkood hanjabaado toos u jeediyeen iyaga oo ka doonayo lacag baad ah. golaha wasiirada ayaa cambaareeyay falka argagixisada oo ah kii lagu yaqaanay oo 10 sano ee la soo dhaafay ay hadba nooc u isticmaalayeen inay waxyeeleeyaan dadka Soomaaliyeed. golaha wasiirada ayaa si gaar ah u faray wasiirka amniga in isaga iyo saraakiisha hoos timaada ee qaabilsan amnigu ay la yimaadaan qorshe cad
oo looga jawaabayo tacadiyada joogtada ah ee argagixisadu ay ku hayso dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan arrinta ka taagan suuqa bakaaraha oo ay tahay in tallaabo degdeg ah laga qaado argagixisadaas. sidoo kalena maanta magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug ka dhacday doorasho golaha shacabka aqalkiisa hoose, sidoo kalena waxaa ka dhacday doorasho Garowe. doorashooyinkaasi oo qayb ka ah doorashooyinkii golaha shacabka ee aqalka hoose ee dowladda federaalk Soomaaliya baarlamaanka 11aad ee soo socda. doorashadii Galmudug ka dhacday ayaa waxaa ku Jarnaal Saadiq John oo isla markaasina ahaa taliyihii ciidanka booliiska gobolka Banaadir, isla markaasina muddo kordhintii farmaajo ka biyo diiday, waxaana kursigii doorashada maanta lagu doortay, isla markaasina uu ahaa mid uu ku fadhiyey 5 sano lasoo dhaafay Buqaari oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka aqalkiisa sare. sidoo kalena waxaa doorashadii ka dhacday Dhuusamareeb ee lagu doortay, isla markaasina ku soo baxay Maxamed Ibraahim Cali Maxamed Cajiib, isla markaasina ka mid ahaa siyaasiyiintii maanta ku soo baxday asagii Saadiq John golaha shacabka ee Dhuusamareeb lagu doortay. guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa, tan iyo mar kalena intaa kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.